بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxay leeyihiin Mareykanka waxaan joojinay dhamaan wax alla wixii dagaal ahaa ee Iran nagala dhaxeeyay saasaan isku raacnay si xujiraan yaa bilaabay almuhim arintaasi waxa keenay faafahinta isdul taagi doonaa Israa'iil iyo Turkiga oo meeshii ugu darnayd muddooyinkan casriga ah aanan gaarin waligooda isla maraya arintaas isdul taagi doonaa waana faafahin doonaa waxaan ka hadli doonaa kulaylka Yurub iyo dhimashada tirada badan ee socota aan soo bilowno kulankii ugu horeeyay ee sida dagaalka uu istaagay ay yeeshaan Iran iyo Oman kulankan waxa horta uu yahay kulan weyn waxa la rajaynayaa waxyaalo badan in la isla garto waa dawladda Oman iyo Iran ujeedada ay u kulmaan waa maxay in Hormuz labadooda kaliya ay ka hadlaan oo Mareykanka shaqo ku lahayn dawlad kale shaqo ku lahayn abinka dhinaciina saramel oo naga tiiriya anaga meesh dhinaciina siyaasad kale meel aan saarayna Iran Urdun waxay u soo gelinaysaa inta badan ayad labadooda ka dhaxeeya Urdun waxay doonaysaa ayadan in arintan baxarka aan la gelin ay banaanka ka joogto abinka Mareykanka in ka dhaxaysa wixii wada hadal ah kada isa soo qarta ama anaga khilaaf kuma jirna amal saas oo kale Urdun marka in badan iska fogeynaysaa laakiin Iran waxaad u malaysaa inay ku soo jiidayso say ahaataba sababta keentay Urdun ma ahan afwan waxaan ula jeedaa waa Oman waa sababta keentay marka Oman in Mareykanka u goondiyay oo yiri waan baabi'inayna Oman naftirkeeda yani qaabka ay Iran ula shaqeeyeen ayuu Mareykanka wuxuu u arkaa inay handalaad ku tahay oo ay keenaysana inay Iran la jirto oo kale almuhim taasi waa taa dhinaca kale kuleyl tiro badan oo aan caadi ahayn oo dhimasho iyo xanuuno badan iyo isbitaal badan oo hade bukaano badan ay u galeen bal waxyaalaha qaarkooda ee jidadka yani ay sida markay ugu dhacaan kuleelka oo qoraxda ugu dhaco yani dhalaalaya ayaa Yurub ka socda intaasoo meel bal tariin soo u socday oo wadadiisa goomayaashii isku hayay dhalaalay oo hal mar khadka ka baxay inkastoo waxba aanu dadka ay ku gaarin ayaa la soo warinayaa caadiyan anaga marka Soomaaliya aan joogno yani kuleel marka la dhaho yani waan naqaanaa kuleel saasan u maleynaa kuleelka adduunka marka qaarkiisa ka dhaca wadamada qaarkooda waa arkaysaan waa loo dhintaa caadi waa loo dhintaa waayla badan si taga dad badan jidka ayagoo socda iska dhaca kadibna suuxa kadibna saa ku taga qaarkood isbitaal la geeyaa marka kuleelka Yurub marka qaarkiisa ka dhacaya xataa waxaad ku fikirtay ma sidoo yahay yani war neef ma neefsan kartid oo dabeel yar lama socoto waa huur ونقص كله وجود جناية قرحتين هالكاسية تاجنت وحق استدعاء بسم الله الرحمن عذابت معيتها المهم حرد داسي وتاس إن عكلا مدحونها إيران أي وحكاها الله يا إن إيران أي حق ولا هاي أرنتا يورانيوم نيوكلير كذا وحنا ليه هاي لمان وح أنا سمعنا إنه وح مدنية وحنا الدوني إنه وح نغفلن النجا وأنا نجبدنين إن أنا سمعنا وطبعا هالدهور مركي ورشدين تيوحي لما تكون صعبة arintaana waxay ku saabsan tahay xaqeena aan u leenahay inaan noolaano horumarnana waa madaxweynaha Iran okay waxaan kaloo ka hadlaynaa dabcan Mareykanka arinta uu leeyahay waxaan joojinay dagaalka horta arinta ka hor u kaadi xalay ama subaxan iska leh taqriiban waxay soo saareen bayaan ay leeyihiin dhamaan wax alla wixii musayiraad ama drones iyo sawaariikh ay Iran soo turtay dhinaca Kuwait iyo Bahrain u soo turtay waa wada qabanay wayna ku fashilantay Iran inay wax la gaarsiiso ciidamadeena ama xataa wadamaday soo weerartay ciidamadeena waa amaan okay su'aalaha meeshan taala marka dhismooyinkii shalato la soo bandhigay ee burburay maxay ahaayeen Kuwait ayada sheeganaysa ay sheegay khaasatan Bahrain ayada sheeganaysa dhibaatadii ku dhacday Mareykanka wuxuu leeyahay waxba kuma dhicin waa laga qabtay المهم taasi waa taa dhinaca kale isla Mareykanka wuxuu leeyahay marka waxaan go'aansanay in dhamaan wax walba oo nashaad naga dhaxeeyo ee dagaal ah wax isku turtur Iran aan joojino sababtan waxay tahay in wada hadalka iyo heshiiska aan rabno inaan gaarno arintan caqabad ay ku tahay hadda ogaanaya macnaha sida akhbaar sida u qoran tahay yani marka waxa keenay marka hadalka hadda tan ka hor imaanaya waxa arintan keenay waa maxay Mareykanka hadda waxay dhahan wax yar ka hor saad maqlaysay wax na gaaray malahan wax walba okay kada laakiin haddana hadalkana jira waan joojinaynaa wax habeeraatay xabad isma weedaasan doona
waxaa lagu fasirayaa ee faranqayaasha qaar ay leeyihiin arrintan waxa keenay waa hal iiraan shalay duqeynta ay geysatay ma aysan ahayn mid sahlan gaar ahaan saldhigga maraykanka ay ku leeyihiin baxrayn waa ay burburisay haaf ka mid ah yacni droneskay u adeegsatay iyo sawaariikhdiiba arrintaasaa keentay dabcan in maraykanka uu dhaho waan kala joogsanayna oo kale kowdiina dabcan sida la ogyahay asagaa bilaabay maraykanka asagaa gacanta ku horreeyey intaa halkaasna uga baxmaana turkiga iyo israa'iil horta turkiga waxay leedahay israa'iil waxay raadinaysaa cadow cusub annaga inay noo abuurato inaan nahay ay naga dhigato oo maxaa cadow la-aan ma ahaan karto marka waxay rabtaa in annaga hadeertaan registrationkeeda na geliso ee calaamadii istilaafka ina saartay dhahdo weli qoladan way dhiman yihiin macnaha waan u soconaase waxay leeyihiin marka arrintaasi sax ma ahan waxaan aqbalaynana ma ahan waana la soconaa dhaqdhaqaaqa ay israa'iil wado waa turki say u dhigaan hadalka ku saabsan in ay rabto maraykanka annaga inay isku dirto dabcan waxaa socday dhaqdhaqaaq ay israa'iil aada u wado oo haddee xoogan oo turkiga lagaga hor istaagayo in laga iibiyo wax alla wixii ku saabsan F-35 waxayna maraykanka ugu dambeyn adiga ku adkaysanayaan hadda in arrintaas ay soconayso bal waxay Reuters ay qorayso oo kale yacnihi maraykanka wuxuu dabcan hore ugu soconayaa heshiiskii kala dhexeeyey turkiga ee ahaa inuu ka iibiyo matoorada F-35ka kulanka neto ee soo socdana arrintaasi ayaa lagu saxiixi doonaa marka arrintan waxay u eg tahay mid israa'iil faraheeda ka baxday oo maraykanka ama Donald Trump uu go'aansaday in heshiiska hore ugu socdo ama laakiin israa'iil waxay leedahay annaga ammaankeena ayaa wax walba nooga muhiimsan turkigana waxay halis ku yihiin hadday diyaaradahan ama matooradan ay helaan ammaankeenna sababta way noo goodiyeen hadalkii daraaday macnaha fasirayaan oo wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga uu ku hadlay ahaa in caasimadda qudus ay tahay caasimadda falastiiniyiinta kuna soo laaban doonto xilligay ahaataba gacanta turkida soo ula jeedo ama loo fasiran karo yani cuthmaaniyiinta waagii turkiga yani adeegyada weyn ee turkiga marka israa'iiliyiinta dhinacan sidaasay leeyihiin turkiya dhinacan sidaasay leeyihiin laakiin maxaa dabcan u dhexeeya labadooda waxaa u dhexeeya qof weerar ah iyo qof weerar ah aan ahayna qoladan waxay leeyihin cadow noo soo socdo weyaan turkida ay tahay inaan qabanno qoladanna waxay leeyihiin macnaha qudus aan qabsan doonaa laakiin qoladan marka la fiiriyo way fududahay hadalka say u dhigayaan gaar ahaan ayaga isdiyaarin ahaanay u eg tahay israa'iil waxay leedahay isdiyaarintaasaba diidannahay maxaa yeelay diyaaradahan iyo injinadooda haddaan helno ay helaan macnaha halisay nagu tahay okay loobiga marka ololaha ka dhex socda maraykanka dhexdiisa waa xildhibaano maraykan ah oo arrintaasi ka dagaalamaya ayaa israa'iil ay samaysay oo aada u adag xildhibaanadaasi arrinta soo socota shirka soo socda neto ma ka hor istaagi doonaan Trump inuu macnaha hore usii socdo ama waa arrin la sugi doono laakiin waxay u muuqataa in hadda si toos ah aan waxba la isu reebanayn dagaalna uu socdo turkiga iyo israa'iil ka dhexeeya oo laakiin diblomaasiyadeed intaasaan kusoo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu